ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland ee degan dalkan Canada gaar ahaan magaalada madaxdiisa Ottawa in xafladii loo wada balansanaa ee 18 May in ay sanadkan Ottawa ka dhacdo ay qabsoomayso 5 bisha May 2018 waa sabtida fooda inagu soo haysay waxayna ka qabsoomaysaa magaalada madaxda dalka Canada ee Ottawa goobta ay xafladu ka dhacaysaana waa beerta loo yaqaano Fancy Mancy Park ee dhinaca koonfurta ka beegan Riverside xafladan oo sanadkan maalinimo la qabanayo waxay bilaabi doontaa amintu maama qorsheegtu markay tahay 12 subaxnimo ilaa 5 galabnimo xafladan oo si ballaaran la isku soo baxayo waxa ka soo qayb galaya MP iyo ka tirsan baarlamaanka dalka Canada sidoo kalena wakiilka Soomaaliland ee dalka Canada u fadhida ayaa la ciidi doonta shacabka haddaba الرولة هي عروربا وحالين جو أوجيسين لين فريا أمالين أوجيسينيا إن هتكسر قيب كشان معلنتان ملقاها كار كحباسن شعب كجمهورية الصوماليلاند لو قد بالتجيو لصورنا قشدي حرية دي لون تيكو سجال بقولي اللي إحنا كي kasoo qayb gal caruur iyo irroolaba kaalay cuntadu waa bilaash biyuhu waa bilaash wax kasta oo goobta yaalo oo aad ka cuntaa waa bilaash muusig dhinaca muusiga heesihii ugu dambeeyay ee dhiiga ku dhaqaajinayay ee reer Soomaaliland ay u hureen maalintooda qarannimada iyo dalkooga ayaa goobta laga ciyaari doonaa qofka ciyaarka ka maqna caruuraha laftoodana dhinaca madadaalada way ku jiraan calaamada ayaa wajiyadooda lagu xardhayaa dhinaca kubadihii baa yaala ay ciyaarayeen haddaba hamoogaan 18 May iyo Ottawa iyo sabtida fooda inagu soo haysa ay bishu tahay 2018 waa May 5 وانا فانسي منسي بارك بلانتينو يسدي يتبقى مي يساعدو كوب يتبقى الصبح نمي بلابي دونتو إلا شنطة قلبنا ولا وضع عيدي دونو حاجة سوق قادني وحال عمتا إيه وحال ونسابة وانا كوب بلاش عرور تابا ورك الصور بلانتينو وفانسي منسي بارك صرني على يوم